waxaa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada isdhex yaacayay codad la faafinayo iyo fiidiyoyo sheegaya in laga maqlay waddanka Marocco ama Maghrib iyo Liibiya codka nibiriga ama libiriga buluuga ah. haddaba website carab leedahay iyo weliba sidoo kale baraha bulshada ayaa waxaa la isla dhex qaadayay in ay tani ka mid tahay calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha. haddaba barnaamijkeenan waxaan uga hadli doonaa dhowr qodob. qodobka koowaad waa maxay libiriga buluuga ah? qodobka labaad ma ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha? xayawaankan lagu magacaabo libiriga buluuga ah waa xayawaan aad u xajmi weyn, iyadoona lagu sheego mararka qaar inuu gaarayo xitaa guryo badan oo dabaqyo isdul saaran xajmigooda oo kale, kuwaasi oo ka badan 5 dabaq. sidoo kale waa xayawaan carabkiisa oo kaliya lagu sheego inuu la eg yahay sida maroodiga oo kale. haddii uu afkiisa kala qaadana ay dhex seexan karaan dad ka badan 80 qof, ama xitaa ay dhex istaagi karaan, yacni siduu u xajmi weyn yahay awgeed. haddaba xayawaankan aadka u xajmiga weyn kana mid ah xayawaanada ugu da'da